dowladda Itoobiya ayaa ku dhacday daban halis oo u dhigtay dowladda Soomaaliya kadib xiisadda culus ee labada wadan dhex martay iyo kaartooyinka siyaasadeed ee la isku adeegsaday waxaana xilligan ay u muuqataa filla Soomaaliya in dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca istiraatiijiyadda ay kaga adkaatay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ee fadhigeedu yahay Addis Ababa. dowladda Soomaaliya ayaa waxa toddobaadadii la soo dhaafay ay ku howlaneed sida ay uga dhaadhicin lahayd dowladaha dariska la Itoobiya inay qaadaan tillaabooyin isku xiran oo lagu cadaadinayo xukuumadda Addis Ababa si dhammaan dowladahaas ay xuduudahooda uga xirtaan go'doon loo geliyo maamulka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo cadeeyay in duulaan uu ku yahay madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladaha dariska la intaba. arrintan waxay keentay in ay dowladaha kuwooda ugu dambeeyay ee xiriirka hoose la lahaa Addis Ababa ay sameeyaan tijaabooyin ay ku wajahayaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kii ugu dambeysay ayaana xaajadoodu ay xumaatay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kadib markii heshiis hore loo galay oo dhinaca korontada quseeyay la isku fahmi waayay waxaana hadda dowladda Kenya ay ku soo biirtay liiska wadamada isha goonida ah iskaga haya Itoobiya ee xiriirkoodu uu sii xumaanayo. sida xogaha soo baxaya ay tilmaamayaan waxa suurtagal ah in dhawaan kulan degdeg ah iskugu yimaadaan madaxda dowladaha Kenya, Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo Masar. kulankaas shanta dowladood waxa looga arrinsan doonaa sidii tilaabo isku mid ah looga qaadi lahaa xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyadoo suurtagal ay tahay in dowladahan isbahaysi ay ku dhawaaqaan oo gabi ahaanba ay xiriirka u jaraan xukuumadda fadhigeedu yahay Addis Ababa. haddii tan ay dhacdo kulankan uu qabsoomo waxa taasi ay caqabad ku noqon doontaa dowladda Itoobiya iyadoo dhammaan ka soo xiri doonta xuduudaha ay wadaagaan shantan dowladood taasi oo halis ku noqon doonta dhinaca dhaqaalaha horumarka iyo xitaa dowladnimada Itoobiya oo xilligan gudaheeda dagaalo culus ay ka socdaan. waxa arrintan ay ku soo aadaysaa xilli Abiy Ahmed uu isku dayayo inuu weeraro dhinaca Eritrea Soomaaliya uu ku soo daabulayo ciidamo si ugu yaraan uu fuliyo heshiiska la galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena faragelin uu ku hayo siyaasadda gudaha oo Puntland uu xiriir la samaystay dhinaca Masarna la isku hayo arrinta biyo xiraanka webiga Nile. isbahaysi shantan dowladood ay galaan ayaa soo afjari kara qorshayaasha guracan ee Abiy Ahmed kuna soo celin kara miiska wada hadalka iyo inuu ka tanaasulo qorshayaashiisan uu ku weerarayo amaba uu kaga doonayo dhulka iyo biyaha dowladaha dariska. Kenya waxaa toddobaadyo ka hor ay ka qabatay gudaha wadankeeda injineero Itoobiyaan ah oo si dhuumaalaysi ah ku soo galay qorsheynayana in indhayn ay ka sameeyaan xeebaheeda si ugu yaraan ay halkaas uga sameeyaan dhaqdhaqaaqyo. markii injineeradaas gacanta lagu dhigayna waxa Itoobiya ay sheegtay in qorshahoodu ahaa indhayn ay ku soo sameeyaan dekedaha ku yaala marinkaas ay joogeen si ay Itoobiya ugu soo bandhigto dowladda Kenya in halkaas waxa ay ka soo degsato maadaama hadda Djibouti oo kaliya waxay uga soo degaan. si kastaba Itoobiya caqabad xoogan ay kala kulantay heshiiska ay la gashay Muuse Biixi dowladda federaalku go'aanada ay qaadatay ayaana halis culus ay ka wajahday. dhanka kale waxa taageero ay ka weysay dowladaha caalamka oo dhan iyo ururada qaramada midoobay midowga Afrika IGAD iyo kuwa kale ay ku midaysan yihiin Soomaaliya. dhanka kale waxa soo baxaya xoga tilmaamaya in qaramada midoobay iyo midowga Afrika dhankooda ay ka howlwaayeen Itoobiya suurtagalna ay tahay in cunaqabateen dhinaca dhaqaalaha ay saaraan maadaama wadankaas deymo fara badan lagu leeyahay oo dhaqaalihii uu iska bixin waayay. tillaabooyin culus oo lagu cadaadinayo Addis in la qaado toddobaadyada soo aadan ayaana suurtagalnimadoodu ay tahay mid sii xoogaysanaysa.